السلام عليكم أصحابتي وحرق يا صحابتي ورئيلة جودة قولي قبل ما يدن لايها دادي كعصبتهاي سكريب كيسار إلى لافين حداد ورئيلة جوكتنا لايكت يكومنتك حقا ديري قلنا إيتاي حقا إن شاء الله بإذن الله كريم نلا فيرسدا ويلكان ما شاء الله أسوقون دوفين أسوقون دباد آدين أيو مليون دير نقدر قولي كنتو كن أو دولار ديكست أنا قادر يوروب جوغنا كنتو غانا تشيكت لواتن كل عتبه اللي كرنا نلا فيرسدا run ahaantii aad waxa imaaday aniga oo faqiir ah hadda waxaan deganahay guriyaasha cadaado guriyaasha ugu quruxda badan oo joogo lacag $50,000 aan ku dhisay kani waa Cabdirasaaq Shariif Nuur Carabay oo daahana jira 30 sano waxa uu magaalada cadaado soo galay isagoo aan shaax shuba karin oo faqiir ah waliba xilli aad u adkayd hadda waa hanti la dhistay villa aad qasri moodo oo ay uga baxday in ka badan $50,000 warbixintan xiisaha leh intaan guda galina daawade waxaan si naxariis leh kaaga dalbanayaa in muuqaalkan aad share garayso asxaabtaada aad la wadaagto Cabdirasaaq Shariif oo ka soo jeeda beesha Jareerweyne ayaa haysta 5 caruur ah iyo hooyadood waana artist aad looga jecel yahay magaalada uu ku dhaqan yahay wax sahlan ma aha inaad oo faqiir ah aad si fudud ku noqoto tijaar waliba iyadoo ay kugu xiriiraan xaas iyo caruur nooc caafimaad iyo waxbarasho ka rabo haddana Carabay waa ka gudbay jagboontigaasi aad ka adag iyo wadooyin badan oo ciriiri ah haddana waxa uu leersanayaa oo uu ku kifaaxaya qasrigan oo isagu leeyahay ya salaam salimna min albalad cadaado waa magaalo halkudhigeedu yahay cadaado cidi kama xigto taas oo ka dhigan qof kasta ee Soomaali sheegta inuu ku nabadgelayo oo ay hoygiisa tahay marka aad rabto inaad horumar ka samayso nolosha oo aad ka gudubto marxalad adag waxa laga rabaa dhabar adeeg dulqaad badan iyo dadaal dheeri ah si aad u hiigsato himiladaada waa Cabdirasaaq Shariif Nuur Xasan oo ku magac dheer Arwi Artist oo ku dhashay degmada Buurhakawe laakiin deegaan oo ku yahay degmada Cadaado 10 sano jooga run ahaantii shaqadan nacfi way leedahay laakiin inta badan ba dadka artist-ka ah waxay balwada isticmaalaan ma fahmino aniga qof balwad isticmaalamihi qof xaaladiis iska iskaayo wixii kastiyar oo helo si fiican u maamulo horta shaqadeeda shaqo weyn ma qabtay laakiin waa shaqadeeda waa shaqo artist magaalada artist ka ahay artistan ka magaaladan guriyaha Manooriya artistan ka ahay waxaan qabtaa shaqooyinka oo magaaladan ka qabtaa waxaan ka shaqeeyaa Dhuusamareeb Guriceel Cadaado Balambal ilaa Yaawuda meelahaas aan ka shaqeeyaa ilaa Hobyo gurigan waxaan ku dhistay shaqada artist-kan ku dhistay ugu horeynta horta gurigan waxaan ku dhisay markii ugu horeysay dhulka markaan gatay kiskasa u dhis maalinba kisa dhisay dhulkan markaa gatay halkan qola dhisay qolka meesha ku yaal hal qol kaligiis oo yahay alkiyaan sameeyay qolka markaan dhameystiray asiga oo waxaan dhan aan lahayn qolka kaligiisa soo dhigay qol iyo masquul oo yahay kabacdi aan u degana kasta soo dhisay heerkan aan soo gaarsiin run ahaantii aad waxa imaaday aniga oo faqiir ah maantana alxamdulillah ilaaha ma hadda u sugnaatay hadda waxaan deganahay guriyaasha Cadaado guriyaasha ugu quruxda badan oo joogo lacag $50,000 aan ku dhisay shaqadeedana waa artist magaaladan waa ku noolahay waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay qof walba oo Soomaaliyeed oo muuqaalkan daawado inuu share gareeyo oo qofka bani'aadamka soo dhoofin ama wadan kale oo aadan aan wadanka ka cararin inuu wax qabsan karo oo muujiyo run ahaantii aniga waxaan joogaa Galmudug dadka Soomaalida inta badan waxay leedahay Galmudug waxa ka soo jeedo dad aan xaaladooda aan la qiyaasi karin oo iska madax adiga iska joogan maanta waa kana Galmudug dhaqaalahaana ka sameeyay marka qof walba inta wadankiisa oo ka carara lahaay wadankiisa ha ka shaqeysto fursad shaqo ka banaan ha shaqeysto waxna ha qabsado maadaama oo gurigan aan ku dhisay lacag gaaraysa $50,000